السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا رمان أصحابته هل كان يقدر ونسا meel walba aad joogtaan si walba muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaarayaba caawa xaaladdu way ka adag tahay habeenadii hore waxaana is soo taraya warar xasaasi ah oo ku wajahan dhanka Iran waxaana la rumaysan yahay in Mareykanku uu weerari doono dalkaasi Iran 48 saac ee markaasi nagu soo wajahan hadda laga bilaabo ilaa iyo 48 saacadood ee nagu soo wajahan inuu Mareykan Iran weerari doono ayaa si weyn markaasi loo aaminsan yahay markii la fiiriyo xogaha xasaasiga ah ee markaa soo baxaya waxaan marka bal muuqaalkan aynu bal ku fiirin doonaa waa maxay wararka xasaasiga ee soo baxaya ee muujinaya in Mareykanku uu weerari karo dalkaasi Iran saacadaha markaasi inagu soo wajahan waxaan sidoo kale aynu fiirin doonaa haddii Mareykanku Iran uu weeraro waa maxay waxa dhici doona iyo waliba Iran oo sheegtay talaabada ay qaadi doonto haddii markaasi Mareykanku uu weerar ku soo qaado talaabadaas oo u muuqata in bariga dhexe oo dhan uu markaasi guban doono iyo xaaladda oo markaa ka sii daraysa ayaa bal falanqeyn doonaa soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan si walba oo muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaarayaba waxaan markaa idin xasuusinayaa haddii inana hore ku Soomaaliya iyo arrimaha kale ee bulshada aad ayaad u mahadsantihiin haddii aynu ku bilowno cabsida laga qabo caawa Mareykanku inuu weeraro dalkaasi Iran waa mid soo xoogaysanaysa markii la fiiriyo waxyaalaha hadda ka dhacaya gudaha Iran iyo wararka hadda ugu dambeeyay ee markaasi in soo gaaraya dhowr waxyaalood ayaa muujinaya in xaaladaasi ay macquul gal tahay inay dhacaan waana waxyaalaha indication-ka ah ama muujinaya inay wax dhici karayaan qodobka ugu horeeya waa ciidanka cirka ee Iran oo caawa galay hawlgalkoodii ugu weynaa ama diyaar garowgoodii ugu weynaa ee cirka waxaa la soo tabinayaa inay markaasi culays weyn Iran iska saartay hawadeeda caawa arintaas oo marka loo arko in Iran ay heshay xogo markaasi xasaasi ah oo muujinaya in duulaan lagu soo yahay waxaana jira xogo kale oo ayaguna markaasi warbaahinta qaar kamid ah ay sheegayaan oo marka la leeyahay ilaa 60 diyaaradood ayaa dhankaasi Iran u jahaystay oo loo arkay in markaasi Iran duulaanka lagu yahay marka xogtaas soo horeysay ayaa hadara caawa ay Iran sheegaysaa inay hawlgalkii ugu weynaa oo hawada ay markaasi ay gashay cirka Iran oo dhan waxa laga arkaya inuu ka jiro diyaar garow iyo sida qalabkooda difaaca cirka aw markaasi active u caaw yahay qodobka labaad oo muujinaya in xaaladdu caawa ay halis tahay ayaa waxay tahay waxa qadkii internetka ee Iran ayaa la qalqal galiyay waana la haagarayay sida dawladda Iran ay markaasi ay sheegtay war ka soo baxay booliska dalkaasi Iran ayaa wuxuu sheegay in dib loo soo celin doono internetka maadaama la haagarayay oo cyber attack lagu sameeyay waan soo celin doonaa ayay yiraahdeen arintaasi internetka la xiriirta habeenkii Israel ay ku duuleysay Iran oo saraakiisha Iran la baabi'inayay xarumaha nuclear-ka ahna la taageeraysanayay saacadii ka horeeyay waxa la sheegay in internetka Iran sidaas oo kale markaasi loo haagarayay oo cyber attack marka lagu sameeyay caawana isla arintii ayaa mar kale soo laabatay waxa marka la rumaysan yahay in dhacdadaas oo kaleeto ay imaan doonto oo weerar kale oo Iran ku soo wajahan uu caawa uu jiro booliiskan waxay ku hawlan yihiin in saacadaha soo socda markaasi ay dib u soo celiyaan qadka internetka waana qodobka labaad oo muujinaya caawa in xaaladdu ay markaasi aad halis u tahay marka qodobadaasi iyo kuwa kalaba waa kuwa caawa muujinaya in xaaladdu adag tahay wax walba oo Iran ka soo baxa caawa oo weerar ah muuqaaladanada dambe ayaynu si degdeg ah markaasi ugu soo tabin doonaa isha ayaynu ku hayn doonaa waxaanu u gudbeynaa marka bal qodobka kale haddii Iran la weeraro maxaa dhici doona iyo hanjabaadda ay soo saartay Iran oo ah mid muujinaysa in gobolka dhexe oo dhan uu guban karo maxay tahay ayaynu marka hore falanqeynaynaa hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka cirka ee dalkaasi Iran ayaa waxa uu ku sheegay Mareykanku waxa uu bariga dhexe ku leeyahay buu yiri ilaa 10 saldhig oo ciidan kuwaas oo ku hareeraysan dalka Iran marka nin ku jira galaas ama quraarad nin ku dhex jira ama guri dabaqa halka ay Soomaalida ka oran jirtay nin ku jira dadka ma tuuriyeeya ayuu yiri taliyahaasi ogoona ninkaas waa ninka ugu sareeya ee ciidanka cirka ee Iran waa ninka amri kara in meel walba markaasi gantaalo loo rido oo markaasi arinta maamula tani marka waxay muujinaysaa inaynu bal dib u fiirino bal saldhigyada Iran ku hareeraysan
oo Iran caawa ay ku hanjabayso haddii dhankeeda la soo aado ay markaasi ay weerar doonto bal kuwa ay ku hanjabayso ayaynu fiirin doonaa iyo wax ka dhalan kara haddii aad fiiriso markaa saldhigyada Mareykanku ay ku leeyihiin bariga dhexe iyo waliba kuwa ku hareeraysan Iran waa kuwa runtii aad xasaasi u ah haddii la weerarna bariga dhexe oo dhan uu markaasi uu dabka kacayo waxa la yiri ma jiraysa meel safe ah sida markaa uu dagaalkan u socdo markii la qiimeeyo haddii aad sawirkan fiirisan waxaad arkaysaan Iraq waxa ka jooga waxa la yiri Mareykanka ilaa iyo 2,000 askari xarub bay ku leeyihiin dhinacan Jordan markii la fiiriyo ilaa iyo 3,000 askar baa ka joogta Mareykanka xarub bay ku leeyihiin Sacuudiga markaad fiiriso 2,000 baa ka joogta xarub bay ku leeyihiin Bahrain markaad fiiriso 4,700 baa ka joogta xarub bay ku leeyihiin Qatar markii aad fiiriso 10,000 baa ka joogta xarub bay ku leeyihiin Imaaraadka markii aad fiiriso 5,000 baa ka joogta waxa la yiraahdaa waxay ku leeyihiin xarun meel walba markaad fiiriso even golfka markaad fiiriso gudihiisa ilaa 500 oo askar ayaa ka joogta dhankan kale markaad soo aado ilaa Djibouti markaad fiiriso 4,000 oo askar baa ka joogta kor markaad u dhaqaaqdo ilaa iyo Turkiga iyo Syria waxaad arkaysaa wali ciidamada ka jooga Syria 900 baa ka joogta dhankaas kale ee Turkiga 1,700 ayaa ka joogta Israel kuwa ka jooga Egypt koox baa ka joogta markaysa waxaano saldhig ah oo ku hareeraysan Iran oo Mareykanku uu leeyahay dhamaantood Iran waxay awood u leedahay inay gantaalo u qaybiso caawa oo mid walbaba ay 200 oo gantaal ay la beegsato waxaad qiyaastaa marka dawladahaas oo dhan haddii caawa Iran ay gantaalo u qaybiso sidee buu noqonayaa regionkan oo dhan xaaladiisu waa waxa ugu weyn sababta loo leeyahay meeshaan waxa ka soo baxaya dagaal aysan dadku suuraysan karin waana sababta aad ka marka looga qaylinayo in dagaalku uu markaasi u balaarto Mareykanku waxa kaliya uu sameyn karo waa inuu duqeymo uu markaasi u ka geysto gudaha Iran laakiin Iran duqeynta iyaduna ay geysan karto dalkaas oo dhan oo dariska la ah waxa la yiraahdaa waxay u qaybinaysaa gantaalo dalka naftirkooda markii la weeraro waxay ogolaanayaan ayaguna in Mareykanku tadhax maro marka looga duuli karo Iran wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa xataa in dhaqaale ku bixiyaan Mareykanku ay dhaqaale ku siiyaan sida waliba kuwan waxa la yiraahdaa qaliijka in Mareykanka dhaqaale ku siiyaan oo yiraahdaan dagaalka hal sii kulay maadaama ayaga la soo weeraray waxa sidoo kale meesha ka bixi doona shidaalka adduunka oo dhan ee qaliijka laga qaado ama dawladaha Carabeed oo dhan laga qaado oo dunida la geeyo laga yaabo in 50% ba meesha shidaalka dunida uu ka yimaado haddii hal gantaal ay qaliijka caaw ku tuuraan Iran marka ugu horeysa waxa gaasa adduunka jooga uu qaaliyoobaya markiiba u Iran ilaa 30% ayuu ab noqonaya habeenkii hadda Iran la weeraray ilaa iyo 50% ayuu gaaska kor u kacay caalamka haddii caaw marka Iran ay qaliijka gantaal ku rido ugu yaraan ilaa 30% ayuu kor u kacaya shidaalka adduunka oo dhan taas waa midda ugu horeysa midda labaad dawladahan oo dhan ma ahan dawlado defensive system leh ma ahan haddii gantaal loo qaybiyo Israa'iil oo iska qabanaysay ayaa san u ekaatay qiyaas marka kuwa aan lahayn marka Iran ay gantaal u qaybiso oo aan dagaal shuqul ku lahayn labada dhinac mid aan ahayn oo laga yaabo in la dhaxmaray waxa isweydiin doona marka sidee bay dhulkaan noqon doontaa markii lagu dagaalamo marka meesha musiiba ka socota dhanka Iran markii aad fiiriso meesha ay ku taala dhanka mapping marka aad fiiriso waxa arkaysaa Iran waxay dabada kula jirtaa dawlado ciidan ahaan iyo waxa loo xay awoodaan marka ku bixinay ilaa iyo China fiiri sida ay u sameeysan yihiin meesha ay ku yaalaan marka aad fiiriso Iran meesha ay ku taalo waxay dhabarka damba ku haysaa Afghanistan dhankan waxay ku haysaa Pakistan bay ku haysaa markaysaa waxa ka sii shisheeya labadooda dalinyaro la yiraahdo ka bacdi China la galaya marka si kale markii loo dhiga China iyo Afghanistan iyo Pakistan oo intaba ally la ah nimankan ayaa dhabarka ku haya hatta idan cirka soo marin hatta dhulka la soo marin kara wixii la doonayo markaas in la siiyo marka nimankaasna gadaal bay kula jiraan dhankan kale ee qaliijkana waxay la gali karaan dagaal haddii weerar looga soo qaado waxa kale oo xaqiiqo ah in dhankan oo dhan iyo badaha ay adkaan doonto in maraakiib dambe oo reer galbeeda ay maraan nimankii xalay G7 ka ahaa Iran in la weeraraa waa qasab hubkeeda in la burburiyaa waa qasab haddii caawa dagaal dhaco maraakiib ay leeyihiin meesha ma soo mari doonto waa Ingiriiska yihiin Talyaaniga Mareykanka iyo kuwa la midka waxaad qiyaastaa
kooxda xuutiyiinta oo koox ah kana mid ah carruurta Iiraan ayaa meeshan laga mari waayay gantaalada Iiraan haddii ay go'aansato kuwooda ugu dambeeya inay isticmaasho badan cidda mardoontaan ugu magaranayo marka waxay ku jirtaa xaaladan Iiraan dhimasho iyo nolol bay u dhaxaysaa dhanka kale wararka ugu dambeeyay marka aad fiiriso dadka qiimeynaya gantaalada Iiraan waxa la leeyahay gantaalada ee hadda Iiraan ku garaacayso Israel waa medium range baa la leeyahay waa kuwa dhexdhexe kuwa yaryarna maahan kuwa ugu sarsareeyana maahan waxa la rumaysan yahay ilaa iyo 10 ilaa iyo 15 gantaal inta u dhaxaysa oo gantaaladii sarsaraha ama ugu awoodda badnaa Iiraan inay isticmaashay baa la aaminsan yahay markaysa laakiin majority waxay isticmaalaysaa waa medium range kuwa kale awoodda badan haday isticmaasho dunida oo dhan baa qaylinaysa hadda dhowr gantaal oo ku dhacay Tel Aviv iyo Haifa ilaa hadda waa laga qaylinaya marka dib bay isku dhigaysaa Iiraan uma aragto qatarta ugu weyn caawis hayaan Iiraan uma aragto inay tahay Israel waxay u arkaan cidda ugu weyn hayaan Mareykanka cidda ay dib isku dhigayaan oo gantaaladooda ay u dib dhiganayaan haday dagaalka soo galaan waa Mareykanka wayna og yihiin in Mareykanku dagaalka uu imaan doono xaqiiqo weey markaysa marka meeshan xaaladda ka jirta waa xaalad aad u adag waxaana mar walba la fili karaa inuu qarax weyn oo xataa dagaalka saddexaad ee adduunka markaa noqdo uu ka qarxo waxayse ku xiran tahay hadba cidda dagaalkan ku soo biirta Ruushku hadda waxay leeyihiin indhaha kama fiirsanayno Pakistanku waxa la leeyahay waa nimanka ugu badan ee hadda gadaal ka riixaya oo dagaalka ku jira dhabarkeena ku haya waxay baa hore Pakistan sheegtay hadii nuclear lagu soo riday Iran ay ugu ridi doonaan marka waa sababta ay Iran ugu hanjabayso nin dhala ku jira dadka ma tuuriyeeyo marka bal hadii Mareykan marka hadii Mareykan dagaal bilaabo regionkan oo dhan wuxuu galayaa qax iyo colaad aan ka soo kabasho lahayn ganacsiga caalamka oo dhan waliba xagga saliidda ama shidaalkana si degdeg ah ayaa isbedel ugu imaan doona taasoo maciishada iyo nolosha adduunka oo dhan si adkayn doonta bal intaasaan muuqaalkan ku soo koobaya ishan ku haynaynaa bal waxa dhankaas iyo Tehran dambe oo ka soo baxa muuqaaladeena dambe ayaynu ku falanqeyn doonaa assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh